عليكم أصحابتنا قاليقة سو دوادا أصحابي maanta halka maxaan noogu hayaa maanta waxaan noo kariyay oo halka noogu hayaa maasha Allah bariis cad iyo suugo maasha Allah bariis cad iyo suugadaas oo lagu cunayo iyo bariiska cad oo biyo iyo lagu kariyay cusbo bas maasha Allah iyo hilib shiilan waxa kale oo halka ku haysanaa waa qudradii kale aan ku cuni lahaynay maasha Allah ya soo dhawaada asxaabta qaaliga ka bogasho wacan insha Allah maraq soo dhawaa hada juus rabtana juus ku soo dhawo asxaabta qaaliga soo dhawaada hada idin ku cusbahayna ani soo dhaweey hada hor u joogtayna maasha Allah share gareeya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo gadaalka imaan doona aan soo gelin doono insha Allah ta'ala wadi jecla asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen muuqaalkan quruxda badan oo cuntadeena qadadeena maanta ah intaan haysan Ilaahay ha siiyo inta haysatana Ilaahay ha u siyaadiyo soo dhawaada asxaabta qaaliga عليكم أصحابتنا soo dhawaada sitiin ma la fiican yahay asxaabtena qaaliga maanta waxaan rabnaa inaan karsano bariiskaas oo ka duwan bariiskii horeeto ama bariiska caadiga oo la karsado insha Allah sida uga duwan yahay iyo qaabku yahayna waa isla arki doonaa meeshan waxa ku jiro hilib 2 kiilo waaye kiilo waaye baraf waaye insha Allah hilibkan aan karsaneena stepkeena koobaad uu ka bilaabanayna waa halkan insha Allah isla socod wanaagsan asxaabteena qaaliga hilibku noo bislaaday maasha Allah wuxuuna leeyahay maraq yar oo maasha Allah maraqa gooni ah isticmaalaya waa la cabaaya sidiisa lagu cabaa insha Allah waxa ka baxsaneena hilibka naftirkiisa waxaan ka rabaa insha Allah laba qaybood qayb waxaan ku sameyn doonaa inaan sii huuriyo oo isaga ahaan ofanka angeliyo aan hagaajiyo qaybta kale insha Allah aan ka sameysano maraqa suugada oo bariiska la kari saaraba oo suugo bariis cad iyo suugadiis oo kala gooniyo insha Allah sharaxaad mid ku sii dheerayna ila socda insha Allah asxaabteena hilibka ayaan baaquligan ku guranaynaa insha Allah hilibkeena baaquligan ku ridanaynaa hilib si fiican u bislaaya maasha Allah tabaaraka Allah saasay taane ofanka sii gelinaynaa oo wax yar si saliid laan oo ugu huuro insha Allah maraq ayaan rabaa inaan gooni u bixiyo hilibkana oo gooni noqdo insha Allah وأركينا عمرنا أصحابته هكذا ما شاء الله مرقنا هكذا مرق روح بدنا ولا ما شاء الله مرقنا قوني وشغلنا إن شاء الله وجالسين حتى يعني هلب كنا واكنا وحكو درسنا أنا قالية هلبكي واكلا بحسنة قاعدنا أفن كان قشنة قاعدنا سوغان كسميسنة ناسان قبلنا إن شاء الله ماشي محانو بجرو سوغة علبت أنك سميسن لها نيانيو يبصل يبسباس أنت وحيو بجرو بصل يكبسر علين يبربروني أنكرك كقدر سندون إن شاء الله ماشي محاكو جرو طاني يكبسر يبربروني ما أسكو صوتوني أنت نوا بربدي يبسشي بربدي يسوري يكاراتدي halkan waxa igu jiro cambo iyo qaro oo ka samaysan fruit insha Allah ka samaystay halkan waa salarkii oo ka samaysan carrot qajaar basal iyo barbarooni iyo salarkii halkan waa cambo iyo qaro kale oo asna juice aan ka rabo insha Allah isla socodaan si asxaabteena hadda waxaan bilaabanaynaa in aan hagaajisano insha Allah ama aan dalacno suugadeena insha Allah in asxaabteena birtaan dabka saarnay birtaan waa kulmaatay saliida ku shubanayna insha Allah waxay saliid oo suugada aan ku dalacno سريد وانا كلاتي ان شاء الله معاكم شو بنينا يعني يذيني يبس الشيء يبس باسكي بسم الله أصحابنا يعني يقولي سوية دفي نو سارن يعني يبس الشيء يقولي نو سارن halkan kalena waxaan saartay biyo aan ku karsalahay bariiska digsiga bariiska saartay insha Allah bariis cad aan ku shubayo bas markii biyo soo karaan cusbo iyo bariis cad insha Allah asxaabteena yaanyadeena waa diyaar waxaan ku darsanaynaa baradhada iyo kaarootka insha Allah
waxaan ku darayaa wax yar oo biyo si maadaama ay qalalan tahay baradhada time yar u baahan tahay wax yar baradhada shiila kadibna waxaan ku daraa wax yar oo biyo si ay baradhada xoogaa si fiican ugu bislaato kabacdi isku soo noqonayna insha Allah asxaabteena baradhada iyo carrot kana bislaaran wax yar oo harsan waa taas aan badbadaysaa masha Allah waxaan rabaa in inta sii shiito inta sii karkarayso insha Allah cabitaan hadda waxaan shiidanaynaa juicekeeni juicekeena waa shiidana waa miirnayna insha Allah asxaabta hadda waxaan ku darsanaynaa suugadana waxaan ku darsanaynaa insha Allah hilib maadaama uu qarsan yahay karsan u baahnayn wili baradhada qeyra oo dhiman haddii oo maxaa la dhahaa hilibka aad u bisil yahay bisayl badan u baahno waxaan ku darsanaynaa kabsar caleentii toonta insha Allah asxaabteena baradhada biyo yar ku daray si wax yar ay u bislaato sababta baradhada couscous u jaray maadaama couscous taan hore ka bislaanayso waqti qaadan insha Allah soo wax yar biyahaas markay ay gursato ay noo shiilanto aan ku darsanaynaa hilibka iyo qudaarta yar oo korka loogu daro insha Allah asxaabteena biyo bariiska way noo karaan bariiska ku shubanaynaa insha Allah bariiska waxa la dhahaa waan dhaqay waan qalajiyay kisto aad ma qalalay laakiin waan dhaqay oo mar hore diyaarsaday suugo bariiska qaabkan hadda hore u isticmaalin tijaabi oo arag adayaabi doona ma sha Allah inaba caadi ma ahan anaga waxaan u baranay bariis suugo lagu karinayo lagu dhex karinayo ama qudaar caadi lagu dhex hagaajinayo laakiin wallahi noocan ka macaan kana waxtar iyo faa'iido badan bariiska saliid lagu dhex karinayo oo la isku karinayo inkastoo hadda saliid aysan ka marnaanin in suugo lagu cunayo laakiin way isdhaantaa wana kala dhadhan macaan yahay asxaabteena suugadeena waa noo baradhadeena way noo bislaatay hadda waxaan ku darsanaynaa hilibka insha Allah hilibka noo karsanaay ku darsanaynaa wax yar oo qiyaasaan kala baxay suugada maadaama suugo yar dad badan aysan ahayn waa kana hilibkeena noo bislaa insha Allah hilibka kars ma baahnaysa hada waligeed ku shaawara u kariyay maxay ahaato inta yarta inuu suugada isdhex galo asagana dhanaan uu leeyahay oo cusbaan ku soo kariyay horay waxaan noo haray kaliya waa intaan waxaan noo haray qorofalkan hadda ku darsanaya ani mar walba qorofalkan waa isticmaalaa sababta isticmaalna waxa waa cuntada caraf iyo udug fiican oo yeela ma sha Allah suugo haday tahay bariis haday tahay wax kasto maraq cad waa ku darsadaa intana waa basashii iyo barbaroonigii iyo kabsartii aan marka ugu dambeeyay insha Allah aan ku darsan lahaa intaan yartaan wax yar ku huurinaya ka bacdina halaana korka ugu dari doona insha Allah asxaabteena bariiskeena halkaan noogu karkaraya bariiskeena waa kasoo noo badbadooya waxyara insha Allah u dhiman waxaan rabaa asagana inaan furfur fiican uga dejiyo insha Allah waa bariis cadki aad taqaaneen wax kala ma in asxaabteena suugadeena waa diyaar ma sha Allah diyaar waaye hadana intii yareedo noo hartaan korka ugu darsanayna bacdina waa ka dejisanaynaa insha Allah taymkeeda waa dhamaaday diyaar waaye saasay ku dhamaatay suugadeena shaqadeeda waxaan noo haray kaliya waa bariiskana wax yaraan oo dhiman insha Allah waa ka dejisanaynaa markii bariiskana diyaar waaye uu noo bislaaday ma sha Allah waxaa sameynaynaa waa gidisanaynaa hadduu Ilaahay raaco waa kaas asxaabteena waa soo gidisanay kullaysadeena ku soo shubanay ma sha Allah tabarakallah inaba caadina bariiskan cad ani horta aad u jeclaa ma sha Allah wallahi saddexda waqti cun hadii leedahay waxaan aaminsanahay inaan cuni karo saa u jeclahay ma sha Allah asxaabteena meeshaan muuqaalkeena ku egyahay ma sha Allah suugadeeni waa taasa bariiskeena cadaa lagu cuni lahayn waa kana hilibkiina waa kaasa aan soo ofanka soo geliyaa asna ma sha Allah wixii kale lagu cuni lahaa qudaartoodiina waa taasa ma sha Allah tabarakallah inaba caadi ma ahan asxaabay soo dhawaada halkaan waxa noogu jira maraqeeni ma sha Allah maraq inaba aan caadi ahayn waa aragtiin qurux badan ma sha Allah juicekeeni cambaha iyo qaraha ka sameysnaa waa kaasa asna oo soo dhadhan iyo caraf macaan badan leh ما شاء الله هدي أصحابي أتكاشن مقالكم لايك سبسكرايب إن شاء الله شيرنا فقطة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.